halkan waxaa soo gaaray musharaxiin kala duwan oo markaas u tartamaya kursiga xildhibaannimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo ugu horeeyay musharax xildhibaan ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Ismaaciil Carays sidoo kale mudane Maxamed Cabduqaadir Xasan iyo sidoo kale Cabdullaahi Qorsho iyagana dhamaantood oo u taagan kursiga musharaxiinta ee dowlad goboleedka Hirshabelle halkan ay dabcan si weyn loogu soo dhaweeyay maanta iyadoo halkan ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada martida kala duwan iyadoo isla markaana halkan maanta soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay musharaxiinta waxaa sidoo kale halkan ku soo dhaweeyay odayaal dhaqan qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo isla markaana halkan sidoo kalena ay ku soo dhaweeyeen haweenka qaybahooda kala duwan hadaba musharaxiinta ayaa halkan waxa ay ka jeediyeen kelmado kala duwan kuwaas oo sheegay inay u tartamayaan kursiga xildhibaan ee dowlad goboleedka Hirshabelle marka sharafka qiimaha badan culimada diinka odayaasha dhaqanka dhalinyarta haweenka waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib waxaan rabaa kulli Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haan ma buuxsho warka intiisa badan waxa way sharxiinta iyo maaragtay inta igu horeysa sheegtay kaliya waan kaawaya saawtiin dadweynuhu dalka wuxuu u dhaqaaqay doorasho qof iyo cod ah saadarteeda fursad dahabi ah aad haysataan waa inaad ka faa'iideysataan fursadaas qofka aad idinka doorataan aad u codeysaan ayaa idin matalaya haddii shalay odo dhaqan wax soo xuli jiray maanta dadweynaha gacantooda ku jirta qofka ay dooranayaan marka waxaan rabaa inaad codkiina ku ciil baxdaan haddii alla idin waa inaad doorataan qofka idinku matalaya fagaaraha siyaasadda ama saaxadda siyaasadda qof dantiina ka shaqeynaya danta deegaanka ka shaqeynaya waa inaad geysataan marka saadarteeda ha laga faa'iideysto anigoo Maxamed Cabduqaadir Xasan ahna musharax xildhibaan golaha wakiilada Hirshabelle waxaan rabaa inaad maaragtaa codkiina aad ugu taageertaan oo aad maaragtaa na garab istaagtaan waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoo soo dhaweyseen raashaneele warahmatullaahi tacaala wabarakaatu door wanaagsan dhammaan nabadoonnada dhalinyarada waxgaradka haweenka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Shiniile marka hore waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad ugu faraxsanaa maanta inaan joogo deegaanka Shiniile isla markaana aan la joogo bulshadayda dadkayga in bulshadan quruxda badan aan la joogo dabcan waxay tahay si gaar ah farxad gelinaysaa waa dareemaysaan marka meeshaan imaaday saakay runtii si gaar ah Ismaan iyo saaxiibada kale la tartamaya aad ay ima sargeliyeen waxay dareensiiyeen inay haystaan dad jecel dad deegaankooda jecel dad ku faraxsan inay haystaan saaxiibadan igala tirsan xisbiga GSB isla markaana ila raadinaya kuraasta dabcan aniga 4 sano talisa ka socda 4 makane oo dadkaygaana waa la joogaa dabcan deegaankan markaa joogo marti kamigi reer Shiniile markaa joogana qof kamid aan ahay qof deegaankaana nahay sababtaan halkaan uga soo dhacayn waa dareemi kartaan waa in dadkayga joogaan deegaankaygana aan joogo wiil marka deegaankiisa joogo waa dareemi kartaan marti ma aha runtii si gaar ah markii farxad gelinaysa inaan asxaabtan quruxda badan wajiidan quruxda badan aan la joogo sida la socotaan dalka wuxuu u dhaqaaqay doorasho qof iyo cod madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay isla markaana markuu yimid uu dhaqan galiyay anagoo aragtidaasi ka duuleena isla markaana dabcan rabna in bulshadana wax ka bedelo ayaanu go'aansanay inaan u tartanno golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabelle
iyo sidoo kale golaha deegaanka runtiina markay timaado doorasho qof iyo coda waa dareemaysaanoo ma aha sidaa taqaaneen xildhibaanku qabiil soo dooran jiray oday dhaqameed uu keeni jiray dabcan ani deegaankan codaan uga baahanaha Ismaan iyo saaxiibada kalena tuulada ku dhashay way tagayaan oo cod ay uga baahan yihiin anigu haddaan cod helo JSB ku guuleysto waxaan matalo waa deegaankan waa dadkan Ismaan iyo saaxiibada kaliya ma matalaan howlo badan idin waryaalaan waxaan maanta halkan ugu imid ugu soo dhigo waxay tahay inaad cod isiisaan hadii la doorto codkan aan helo insha Allah ta'ala aan guuleystana anigu waxaan ahay qof og waxaad u baahantiin markay biibaxaan fataada ay dhacdo leegama sheekaynayo miinin xamar degan oo xamar inuu ka soo baabildeena yimaado xilliidii uu ka qaatay iska noqonayo aniga awlaadeedii antideedii iyo dhan ay halkan yaala waxaan idin sheegayaa hadii ay fataada timaadana inaan shirkana meesha u qaxdeen ay la tagayo nin walba meesha jooga aan tagi doono insha Allah ta'ala ma noqon doono aniga nin markuu xilka qaato la magacaabo ama jawar fariista ama xamar fariista ma noqon doono insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa in halka aad joogtiin idin kugu imaado haday abaar dhacdo inaan kaalinteeda ka qaato haday fataad dhacdo kaalinteeda ka qaato haday colaad dhacdo wax walba ee soo martaan inaan baahida meel walba idin kula qaybsado insha Allah ta'ala soo raadsaday hanti miyaaniga waxaan ka soo raadiyay oo kaliya in dadkaygaan u shaqeeyo waxaan ahay nin soo raadiyay in insha Allah ta'ala aan kasbado dadka maanta waqtigooda qaaliga ii soo lumiyay halkan ii yimaaday inaan ka farxiyo insha Allah sidoo kalena waxaa isla goobtan ka hadlay odayaal dhaqan nabadoono iyo sidoo kale samadoono qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka kuwaas oo sheegay in isla markaana ay soo dhaweynayaan musharaxiinta halkan maanta ee ku qabtay munaasabadan kooban ugu horeeyay musharax Ismaan Aadan Cariis iyo sidoo kale Cabdullaahi Qorshe iyo sidoo kale markaas Maxamed Cabdullaahi waa kuwan iyagoo la hadlay warbaahinta Shabeelle musharax oo Hirshabeelle walaalahayna Ismaan Aadan Cariis iyo Maxamed Cabdiqaadir annaga hadeennahay deegaanka garaash waxaan ballan ku qaadnay codkayno 15 jir oo yar qaangaarka oo coday karaaliiri inaan codka ugu shubno hadduu Ilaahay yiraahdo walaalahayna kale oo ummadda inay islaamka ama makana ahaada ama inay islaam ku fiicoda la yiri كان مجرتا مشرعيتا مالتا ومرخاتي كدن وايه الحمد لله الى ما اسكله حتى wuxuu taagan codkiina u taagan dadkii goor ayaa sheegay waxay cadeeyeen in soo socdaan dad anaga nagu matalay kuraasta federaalka dad nagu matalay kuraasta Hirshabeelle oo aan naqaano magacyadooda hadda hebel idin karo oo taqaaniin oo makane oo ismaayar leh oo kuusana leh bismillaahir rahmaanir rahiim وسو دوينينا walaalkayna musharax Ismaan Aadan Cariis iyo Maxamed Cabdiqaadir وسو دوينينا wiilkayna marna walaalkayna marna wiilkayna marna tolkayna maalinkan maanta socdaalku soo gaarnay tuulada Shaneyle waxa la socon xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Xasan waxaan si weyn lagu soo dhaweeyay tuulada Shaneyle aad iyo mahadsanyiin Maxamedna waxa urjeenaynaa guul insha Allah si kastaba ahaatee musharaxiintan ayaa ololahooda ugu dambeeyay ka wada guud ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo isla markaana ay doonayaan in ay u tartamaan guud ahaanba kuraasta dawlad goboleedyada Hirshabeelle ay ku fadhiyaan dad kumanaan sano ama sidoo kale 10 sano oo xiriir ah Libaan Suubani Daawud idaacadda TV-ga Shabeelle